ومقال كميدة مقالات أن وهد الجرني دلالك عالمك يكون سود هذا صاحبي أنت أن مقالك بلاوين فضلا حدي الجنال كعصبتها وحنكع السنة إن الجنال كسبسكرايب سارتي مقال كان أدلى يجريسيد مهتسني dalka maanta aan ka hadli rabno waa dalka Seychelles waa jasiirad ka mid ah 115 jasiiradood ee ku yaala badweynta India waa dalka ugu yar qaaradda Afrika dalkan caasimadiisa waxaa lagu magacaabaa magaalada Victoria luqadaha si rasmiga looga hadlo dalkan waa luqadda Ingiriiska iyo luqadda Faransiiska iyo luqadda kale ee loo yaqaan Seychelles Creole qiyaas ahaan dalkan waxaa ku nool in ku dhow 100,000 oo qof bad ahaan dalkan wuxuu gaarayaa 1,600 oo kiiloomitir taasoo ka dhigtay dalka ugu yar qaaradda Afrika dhaqaale ahaan dalkan wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay dalxiiska oo dalkan wuxuu leeyahay xeebo qurux badan oo loo dalxiisto kalluumaysiga waa il kale oo dhaqaale uu dalkan u leeyahay oo faa'iido weyn u ka sameeyo dawlad ahaan dalkan waa madaxtooyo oo madaxweynaha ayaa ka taliya dalka iyo dawladaba dalkan wuxuu xornimadiisa ka qaatay gumaystaha Ingiriiska taariikhdu markay ahayd 29 bishii 6 1976 cimilo ahaan dalkan waa mid kuleel ah bishii 11 ilaa bishii 3 ee sanadka cusub haddana waa qabow bishii 5 ilaa bishii 9 isla sanadkaas muuqaalkan aan ugu hadlaynay dalka Seychelles intaas ayuu noo eegyahay fadlan ha hilmaamin inaad muuqaalka like garayso channelkana aad subscribe garayso